السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد جورة تيوب maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad u muhiim ah. Haddaba maxaad ka ogtahay in dhagax aad u weyn ku soo aadan yahay dhanka meeraha dhulka 29 bishan Abriil? Ayaamihii ugu dambeeyay waxaa dhagaha aadanaha ka guuxayay xanuunka coronavirus, balse imanka waxaa bedelay dareemayaasha basharka ee dhagaha iyo indhuhu. Waxay ku moogan yihiin warbixinada ku saabsan dhagaxan ku soo jahaysan meeraha biyaha iyo oksijiinta ku qaniga. Hay'adda cirbixiyeennada Mareykanka ee National Aeronautics and Space Administration ee magaceeda loo soo gaabiyo NASA ayaa in badan la socotay xaaladda dhagaxan iyo qaar kaloo badan. Haddaba dhagaxan aadka u weyn ayaa la helay 14 July 1998 magaciisana laga dhigay asteroid 5268 ama 1998 or 2. sidoo kale dhagaxan waxaa helay saynis yahanada barnaamijka Near Earth Asteroid Tracking oo magacooda loo soo gaabiyo NEAT. wuxuu ahaa barnaamij bilowday December 1995 wuxuuna socday ilaa iyo Abriil 2007 waxaana bilaabay hay'adda NASA iyo shaybaarka Jet Propulsion Laboratory. haddaba barnaamijkani wuxuu gaar u ahaa saaminta walxaha u dhow dhulka, iyadoo barnaamijkani lagu qabtay Geodes oo ku taala Hawaii, magacna looga dhigay Hailakala NEAT 566. kale waxaa lagu qabtay Palomar Observatory ama Hailakala High Altitude Observatory Site oo California ku taala, magacna looga dhigay Palomar NEAT 644. kadib helitaanka 40,000 oo meerayaal yaryar ah, NEAT waxay noqotay mid ka mid ah barnaamijyada ugu guulaha badan arrimahan. 29 Abriil xilli ay tahay arooryo hore ee waqtiga Mareykanka, mid ka mid ah meerayaasha yaryar ayaa dul mari doona ama u soo dhowaanaya dhulka abid masaafadii ugu dhoweyd oo ah 3.9 milyan oo mayl ama 6 milyan oo kiiloomitir. masaafadan ayaa la eeg masaafada dayaxu u jiro meeraha dhulka. haddaba sida ay NASA sheegtay, wax dhibaato ah uma geysanayo meeraha dhulka, balse wuxuu dhibaato ku keeni karaa satellaytyada iyo waxyaabaha xaddi badan dhulka uga fog xagga sare. asteroidkan balliciisu waa 2 ilaa 4 kiiloomitir, dhexroorkiisuna yahay 1.1 ilaa 2.5 mayl ama 1.8 ilaa 4.1 kiiloomitir, halka xajmigiisu leegyahay kala badh buurta adduunka ugu dheer ee Everest. hay'adda NASA ayaa sheegtay inuu mar labaad soo aadi doono dhanka dhulka xilliga 2031 una soo jirsan doono 12 milyan oo mayl ama 19 milyan oo kiiloomitir. sidoo kale wuxuu dhagaxani soo noqon doonaa sannadaha 2048 iyo 2068, laakiin wuxuu ahaan doonaa mid inoo jira masaafo fog. balse marka la gaadho sannadka 2079 ayuu inoo soo jirsan doonaa masaafada ugu dhow oo ah 1 milyan kiiloomitir. haddaba haddaad haysato telescope, waad arki kartaa dhagaxa oo gudbaya 29 Abriil. sidoo kale haddaanad haysan, waxaad ka daawan kartaa websiteska spaceka ka faallooda oo live-ka ka bilaabi doona 28 bisha Abriil oo ah maalin ka hor maalinka uu soo dhowaanayo dhagaxu. mowduucu intaas ayuu nagaga eegyahay, ee fadlan nagu soo biira. waa aniga Khadar Guure oo idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.